jacaylkii boodhari iyo hodan, kii qays iyo leyla, kii romeo iyo juliet iyo kuwo kale oo badan oo aad taqaan labadii isjeclaa waxaa kala geeyey cadaawad qabiil ama saboolnimo. waxaase dunida ugu daran jacaylka ay caqiide kala geyso. aan soo kooba qiso dheer oo jacayl oo holaca iyo dhamacda ka kulul laakiin aanay dadku aqoon. intii aan rasuulka sallallahu calayhi wasallam loo waxyoon maka waxaa ku wada noolaa wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo habar wadaag ahaa, kuwaas oo isjeclaaday inta laba qof isjeclaadaan. isaga waxaa la oran jiray Abu Caas Rabiica, iyadana Saynab Maxamed. dabadeed Abu Caas Saynab aabaheed buu weydiistay, Maxamedna waxa uu u sheegay inuu ka warsugo inta uu inantiisa la soo tashanayo. Saynab kolkii aabaheed weydiiyey in ay wax ka qabto inuu siiyey habar wadaageed Abu Caas, jawaab waa ay kari weyday jacayl dartii. laakiin aabaheed dareenkeeda iyo wejigeeda casaaday ayuu ka gartay in yarta lagu weyn yahay. sidii buu ugu guuriyey. ilaa halka qisadu waa iska caadi. beri dambe reerkii oo isku badhaadhay oo janno adduun ku jira oo isu dhalay Cali iyo Usaama, Abu Caas ha safro. safarkana waagaas waa lagu raagi jiray oo biladhan baa Shaam lagu maqnaan jiray. goortii uu soo noqday Saynab war weyn oo cajab leh bay kala hortimid gacliyaheedii. waxa ay uga warantay in aabaheed Maxamed sallallahu calayhi wasallam loo waxyooday oo uu rasuul noqday, iyaduna ay rumaysay oo muslintay. oo maad ila sugtid ayuu weydiiyey. dee aabahay ma aan beensan, beenna ma sheego, keligayna ma aha ee dad badan baa muslimay, sida hooyaday iyo in adeerkay Cali iyo habar wadaageen Cismaan iyo saaxiibka Abubakar, ayay ugu jawaabtay. Abu Caas Saynab waxa uu u sheegay isaga in aanay ka suuroobin inuu muslimo oo aabayaashii ku cadfuro. qir iyo qir yeelkood ee jaceylkoodii ma dhaawacmin, waxayna ku heshiiyeen in ay kala diin duwanaanta isugu dulqaataan. sidii bay noloshoodu u qurux badneed iyaga oo kala diin ah. maalintii dambe waxaa timid in muslimku Madiina u hayaamaan. labadii isxigay iyo labadii isjeclaaba waqtiga ayaa kala dhaqaajiyey. iyada oo ilmeynaysa ayay rasuulka u timid, waxayna weydiisatay in uu u ogolaado in aynan la haajirin ee ninkeeda la joogto. rasuulkuna farxadeedii wuu u yeelay sallallahu calayhi wasallam. ogow waa intii aan weli islaamku guurka diin ku xirin. labadii walaalaheed ee ka yaryaraa ee Raaqiya iyo Umu Kalthum waxaa kala guursaday ilmo Abu Lahab. mar kale inkasta oo aabaheed iyo gacalkeedii kale oo dhami maka ka dhammaadeen, haddana nolol jacayl liibaan leh ayay ninkeeda kula nooleed. laakiin Qurayshtii maka oo dhami waxay si walba u sameeyeen ninka u qaaliga ah ee ay jecel yihiin inay ka furaan gabadha Maxamed dhalay, taas oo ka ahayd fogeyn iyo rixin goysnimo ay muslimka iyo Maxamed ula dan lahaayeen. laakiin Abu Caas oo marwadiisa si xad dhaaf u jeclaa, isla markaana ahaa nin leh gobonnimo qofeed iyo sharaf ilaalin weyn, talada waa ay soo marsiin waayeen. waxay u ballan qaadeen gabadha kale ee uu Carab ka xusho in ay siin doonaan, laakiin jaceylkiisa in lagu baayactamo wuu diiday. isaga beddelkiisa ilmo Abu Lahab labaduba waa ay fureen Raaqiya iyo Umu Kalthum, iyaga oo weliba si gunnimo leh ula dhaqmay. iyada oo jaceylkooda cid liicisa la waayey ayay mar kale arrin aad u weyn soo korodhay. dagaalkii Badar oo reer Marka iyo reer Madiina isku heleen baa dhacay. Saynab aabaheed iyo ninkeedii ay jecleed buuna midba dhinac dagaalka kaga jira. goobta birta la iska aslay waa tii muslimku ku adkaadeen. halkaana Abu Caas waxa uu ka mid noqday raggii maxbuusnimada loo qabtay, markii dambena madax furashada lagu xukumay. Saynab oo awalba walwal iyo murugo u dhammaadeen kolkii ay heshay warka ah in aabaheed iyo ninkeedii midkoodna dagaalka lagu dilin, iyada oo faraxsan bay u qalqaala gashay in ay hesho madax furashada ninkeeda laga doonayo. waxa ay heshay oo dirtay silis qaali ah oo aad u qurux badnaa, kaas oo ay hadiyad uga heshay hooyadeed Khadiija oo iminka sanado sii mootan. siliskii baa Badar la geeyey si Abu Caas loogu furto.
dabadeed rasuulka ayaa siliskii arkay oo gartay inuu yahay kii marwadiisa Khadiija ee uu aadka u jeclaa ee inantiisu dhashay. xusuus adag baa dabadeed ku dhacday. muslimkii buu arrinkii uga warramay, waxa uuna weydiistay inay u ogolaan karaan siliska xasuustiisa qiimaha u leh inay u badbaadiyaan ninkan uu sodoga u yahayna iska sii daayaan. si naxariis leh ayay iyaguna uga yeeleen. dabadeed rasuulka Abu Caas buu la gorgortamay in la sii daayo siliskana loo celiyo, isaguna goorta uu Maka gaadho Zaynab soo diro ayaa la isla qaatay. waayo markii hijrada lagu kala miirmay kadib labada qolo diin ahaan isma gayaan. Abu Caas sida aynu xusnay waxa uu ahaa nin leh qofnimo gobeed iyo kani adayg, sidaa darteed waxa uu ku qasbanaa in uu ballanta oofiyo. waxa uuna Zaynab u sheegay in ay reerkoodii iyo aabaheed Madiina ugu tagto. sidii bay noqotay. jacayl aan maydhmin oo duugoobin buu ahaaye Zaynab way ay diiday raggii badnaa ee reer Madiina mid qura in ay guur ka yeesho, isaguna naag dambe magacaa ma oran. 6 sannadood oo cir alla ka dhashay baa sidaa loo kala maqnaa ee aanay xitaa suuragal ahayn mar qura inay sarkaan, isaguna in uu muslimadiid. 6 sannadood kadib Abu Caas waxa uu wadaa safar Shaam ka yimid oo Maka ku socda oo ah 100 awr ah oo raran. ciidan wareemata ah oo muslim ah baa dabadeed safarkii helay oo ku galgashay oo rag wixii ay dileen mooye wixii kale ka ceedsaday. Abu Caas firxadkii dhanka Maka ma aadin ee Madiina ayuu afka saaray. qoladii soo jabisayna waa ay daba joogaan. dabadeed habeen madow buu magaalada soo galay, waxa uuna hoos u wareystay guriga Zaynab. kolkii loo sheegay wuu u soo galay. weli waa carmal, caruurtiisana waa ay haysaa. farxad iyo jacayl baa la isku bururay. miyaad soo muslimtay ayay weydiisay. maya ee baxsad dhuumasho ah baan ahay ayuu u sheegay. isma qabaan oo xad bay kala leeyihiin. naa magangeliye isii ayuu ka codsaday. waa ay magangelisay, laakiin waqti dheer suuragal ma aha. maxay yeeshaa haddaba? waxa ay yeeshay ismidaamin iyo qariska tuurnimo yaab leh. salaadii subax ayay masjidka rasuulka isku sii daysay. kolkii la salaamo naqsaday ayay qaybta dambe ee masaajidka samada ka qaylisay. Abu Caas baan magangeliyey. rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo u qaadan waayey baa jameecadii ku yidhi, war waxaan aan maqlay ma maqasheen? mar kale ayay qayladii ku celisay. Abu Caas baan magangeliyey. markii la iswareystay Zaynab oo aynu jacaylka ay qabto ogeyn, waxa ay rasuulka ku tidhi, ninkani marka uu ugu fog yahay waa habar wadaagay, marka uu ugu dhow yahayna waa caruurtayda aabahood. dabadeed rasuulka oo qalbigeeda horeba u ogaa waxa uu la tashaday saxaabada, waxa ayna la garteen waxa uu talo u garto. rasuulkuna waxa uu yidhi, cidda ay Zaynab magangelisay waanu magangelinay. waxa uuna Zaynab u sheegay magangelyada in aanay ku jirin naagnimo iyo ninnimo dhex marta. diinta ayaa mar kale loo bandhigay, laakiin wuu diiday inuu muslimo. waxaana markaa kadib rasuulku saxaabada ku yidhi, ninkani haddii uu wax ii sheego waa runlow, haddii uu ballanqaadana wuu oofiyaa. halkaa waxaa la isla gartay qoladii safarka ka soo dhacday in ay xoolihii oo aan waxba ka maqneen u soo celiyaan. sidii bayna noqotay. dabadeed waxaa loo ogolaaday inuu Maka u gudbo. qurayshtii Maka oo isaga iyo safarkiiba ka quusatay buu hadgalay u keenay waxoodii oo aan mood iyo nool dirham ka maqnayn. markaas buu mushrikiintii isugu yeeray una sheegay inuu muslimayo. sababta uu Madiina ugu muslimi waayey markii ay naftiisu halista ku jirtay waxa uu ku macneeyay inuu ka baqay in la yiraahdo baqdin ama xoolo jacayl ama naag buu u muslimay. Madiina ayuu markiiba ku soo noqday oo rasuulka ku hor ashahatay. sidaas buuna mar labaad ku helay jacaylkiisii ay 6 sannadood kala maqnaayeen ee isu samreeyeen. sanad kadib ayay Zaynab dhimatay radiyallahu anha.
ninkii Abu Caasna waxaa ku dhacday murugay iyo ayaan darro taariikhdu ka sheekaysay oo baroordi kasta waxba u tiri weyday. dabadeed sanadba kama uusan dambeyn markii uu murugo u dhintay radiyallahu anhu. waxaa qisadan af Soomaaliga ku qoray qoraaga Ibraahim Hawd Yuusuf Ahmed.